muddo toddobaada magaaladu wax gariir baa ku jiro way gariirtay ma noola abnigii iyo refloshim lacageed dee in la isboobuun baa hadhaye wax kale ma hadhin lacagta haddii la socodsiin waayana waa la isboobayaa oo ganacsatada waa la boobayaa oo ka qoriga sida marka lacagtii lagu diido wuu boobi oo kaayaga shacabkaahi wuu boobi waxa stoorka iyo bakhaarka iyo dukaanka yaaliya bacadlaha baa la isugu imanayaa dee hadday lacagtu shaqayn weydo horta nin walowba taa niyada geli kuwa lacagta keenay ee doonaya inay ka faa'iidaan dhiigga dadkow cuqubaad qaadanaysaan dhaxal xun baad ubadkiinna uga tegaysaan aakhirana meel xun baad ku dambaynaysaan ilaahayna ka yaaba oo ummadda u tudha oo waxaan faalsada ah aad soo siisanaysaan $100 10 milyan war akhriin iyo adduunyada muddo wanaagsan ummadda cuqubadeeduna way ku wada dhacaysaa wax yar maaha dadku waa islaam waa wada shahaadanaya haddii uu dadku dee munaafiqi baa batay mar hore inkaaruhu dhici lahaayeen maamulka waxaan leeyahay dee wadaadkii yidhi milyan baan dhiibo garow waa lagu qabtay gobolku kama ciidan yara garow waa ka ciidan badan sakayurad buulee oo maamul buulee barasa buulee beesh buulee ciidamada ku meersan war lacagtii la qaadan jiray hal socodsiyo waa tan jeebkayga ku jirtaayo mid cad mooyaane hadduu iskagaystay cidi qaadan mayso wareedhe kanbadde marka 3 maalmood kan cadba la dhiibay gacantii waa gacantaas Soomaaliyeed wuu wada casaanaya marka wixii casooda oo dhan miyaynu ka cararaynaa war lacagta socodsiya oo ganacsatadu waa laba qowmiyadood meesha joogta waa qowmiyad aaraareen la yiraahdo oo gobolada Bay iyo Bakool ka timi iyo ummadda ama ilaa ogaadeen iyo ilaa waqooyi ka timi iyo dadkii dalka u dhashay weeyaan war socodsiya haddii kale wallaahi waxaad gacanta ku haysaan baa la isugu imanaya qofku baahidiisa kama qadi karo ma ka qadi karo intaan boob dhicin oo aan la isula tegin awoodda la isula tegin war lacagta si miyir qaba ku socodsiiya magaalada Laascaanood maamulkana waxaan leeyahay dee war dhiishada cabsi baa malaydin haysay dhiishada dee waa la magacaabayaa cilmi guri wuxuu yidhi waa 7 barso weeye u dhashay magaalada iyo dhowr la yidhi waxay ka soo raaceen xagga oo qoladan aan hadeer magacaabaya dee war ku dhiirada oo qabta magacoodiiba waa la garanayaa baa leeyahay maxaad uga baqaysaan waar naga qabtoo shaqale ku tuuro mandheere geeya waad awoodaane hana hagranine awoodiina ku dhiirada awoodda maamul ku dhiirada haddaan gafay raalli halayga ahaado ciddaan u gafayba waxaan ma lahayna yaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu